waxaa maanta si rasmi ah u teereysay magaalada Boorama uga furmay shirka maayarada gobolada dalka Somaliland. Shirkani oo ay ka soo qayb galeen badiba maayarada dalka oo gaadhayay ku dhawaad 17 maayar ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay ururka ay ku midoobeen maayarada degmooyinka ee lagu magacaabo Algasal oo iyadu soo qaban qaabisay kulankani iyo sidoo kale waxa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo wafdi ka socday hay'adaha caalamiga ah ee xiriirka dawladda leh ururkan Algasal oo ay ku midoobeen dawladaha hoose ee dalka Somaliland ayaa waxa kulankani ugu horeyn furay maayarka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo isagu marti loo ahaa oo soo dhaweeyay maayaradan dhigiisa ah ayaa waxa uu sheegay waxaan anigu halkan u kacay inaan idinku soo dhaweeyo degmadaydii oo ah degmadiinii runtii insha Allah shaqadana waxaan filayaa inay halka ka sii wanaagsanaato Algasalna waxa weeyaan waa hanti ay leedahay ama ay leeyihiin degmooyinka Soomaaliland meeyaradu inay gacanta ku hayaan ay tahay in ay dhisaan ay tahay in ay empower gareeyaan oo ay noqoto meel loogu doodo oo laga dhiso dawladaha hoose iyo maamulkooda dhinaca kale barasaafka gobolka Awdal iyo agaasimaha xiriirka maamulada dawladaha hoose iyo maayarka caasimadda Hargeysa oo halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa waxay tibaaxeen runtii waxa halkan noo sharafa maanta in ay isugu yimaadaan ururka Gasal ama maayarada Somaliland dhamaantood oo shir halka ku qabsanaya magaalo madaxdii gobolka Awdal Boorame sharaf bay noo tahay waan idinku soo dhaweynaynaa inuu baydiyaala waan idinku duceynaynaa Ilaahay inuu idinka aqbalo Ilaahayna idin hawl yareeyo ujeedada halka u timaadeen inay idin fusho salaam kulankeenu waa kulan hawleed socon doona 2 maalmood waxaana uu daaran yahay in aad dib u eegis ku sameysaan falanqaysaan ansixisaan qorshaha 3 sano ee ururka dawladaha hoose qorshaha tiigsiga dhow ee ururka dawladaha hoose 3 sano ee soo socota oo halkan idinku soo bandhigi doono oo eegi doontaan waxaan u jecelahay inaan u dulmaro wada shaqaynta wanaagsan ee aanu kala kulannay meeyarada muddo sanad iyo badh annaga oo joognaa halka kan aad baan ugu mahadsantihiin ujeedada maantana kolley waxa idin sheegay ujeedada maanta aan iskugu nimidnay waa strategic plankii ururka dawladaha hoose ee Somaliland And if I now look around me, I think this is my 7th trip to Somaliland, and I recognize all the people, and I meet all the people in the garden outside. It really makes me feel part of a family. sanadkii hore ayaynu ka bilownay shaqada Somaliland aniga iyo xashina waxaan ku heshiinay in ay noqdaan labo sister ama laba hablood oo walaalo ah ururka dawladaha hoose ee Somaliland iyo ururka dawladaha hoose ee Netherlands maanta isugu nimaadno qorshe hawleedkii 5 sano soo socday ururka dawladaha hoose iyo sidii looga shaqeyn lahaa inaynu halkan ku sii dhigno inteena isugu timid halkani farxad weyn bay noo tahay waxaan idinkaga mahadnaqaynaa maayarada ka yimid masaafada fog ee ugu soo talagalay inay hawshooda qabtaan waxaan halkan iyagana uga mahadnaqayaa ururka FNJ ee mataanaha Algasal rabaa inaan u mahadnaqo muxuu ahaa mas'uuliyiinta ururka Algasal iyo maayarada dalka oo dhan kaalinta ay ku leeyihiin horumarinta bulshada kulliba qorshahan aynu maxay maanta u fadhnaano waa strategic plankii muxuu ahaa ururka dawladaha hoose waxaan wasaaradahan aaminsanahay qorshe hawleedkan inay saldhig u noqdo fishanka Jamhuuriyadda Somaliland ee ilaa 2030 waxaan jeclahay ugu dambeyn ku dhawaaqo kulanku waa inoo furan yahay sidoo kale waxaa xusid mudan in madasha shirkani uu ka socday aan lagu dhex arag maayarada caasimadaha gobolada bariga Somaliland gaar ahaan degmooyinka Burco Lascaanood Ergabo taasoo ilaa hadda aan la garanayn sababta ay uga baaqdeen kulankani waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 TV magaalada Boorama